waxaa aad iyo aad muxuu ahaa ii sheegay farxad weyn noogu ah guud ahaanteen inaan maanta halkan ku soo dhaweyno groupkii labaad ee ka mid ah ciidamada hadda ka imaanaya ka soo laabanaya dalka saaxiibada aan nahay ee Turkiga oo halka tababarkoodii uga soo gabagaboobay dufcooyinka kale oo dhimanna insha Allah tacaala aan rijay doono saacadaha soo socda ama waqtiyada soo socda inay soo gaari doonaan ma doonayo inaan hadal badan sii dhaho waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo macallimiintii ciidamada gacanta ku haysay saraakiishii guud ahaan ciidanka Turkiga ee runtii muxuu ahaa ii sheegay oo ugu horeeyay taliyaha xoogga iyo guud ahaan qaranka Turkiga oo ciidankan runtii quruxda badan ee horteena ka muuqday aad arkaysaan soo siiyay tababaro kala duwan in muddaana muxuu ahaa ii sheegay halka lagu soo carbinayay aaminsanahana runtii inay muxuu ahaa ii sheegay ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada iyo muxuu ahaa ii sheegay waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay muxuu ahaa ii sheegay guud ahaan gobollada dalka ay ka fulinayaan gaar ahaan la dagaalanka muxuu ahaa ii sheegay nimankan nabad iyo nolol diidka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diida muxuu ahaa isaga nasashadii idanka Ilaahay waxaan rajaynaa in muxuu ahaa ii sheegay ummadda Soomaaliyeed ay u fi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanaan dul qaadi doono Ilaahay idankiis dhibaatooyinka iyo waxa heesta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaadan doontaan waxaan leeyahay marka ku soo dhawaada dalkiina hooyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad soo qaadateen aqoon aad muxuu ahaa ii sheegay ku caawi doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda Soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan aad iyo aad u mahadsantihiin Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweyne Yuusuf Raage taliyaha Turksom saraakiisha kale military attachee ee walaalaheena ee Turki ciidamada commandoska Gorgor oo hadda yimid qaybtii labaad oo kale qaybtooda ugu horeysay shalay aan soo dhaweynay maanta dufcadooda labaad aan soo dhaweynayna runtii dhamaantiina waa idin salaamaya waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh taliyaha ayaa ka hadlay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay oo shalayna aan idin soo dhaweynay qayb idinkeeda ka mid ahaa maantana aan idin soo dhaweynaynaa si niyad leh runtii oo farxad ku jirto ayaan idin soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala waa daalantihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah waxaan u imaanay inaan idin soo dhaweyno oo kaliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay idin ka dhigo kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waajibaad cusub ayaa idin sugaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda ka hadlay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano aad iyo aad ugu faraxsannahay runtii ummadda Soomaaliyeedna insha Allah tacaala waxaan ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa in ciidankooda garab istaagaan idinkana waxaa laydinka sugayaa waajibaad adag iyo shaqo adag iyo mas'uuliyad adag inaad gudan doontaan insha Allah tacaala soo dhawaada aad iyo aadaan u mahadsantihiin sida wanaagsan oo qiimaha iyo wadaniyadda leh dalkiina hooyaad ugu soo laabateen aad wax u soo barateen aad diyaarna u tihiin inaad naftiina iyo cirdigiina sharafkiina aad u hibaysaan waa mahadsantihiin kun jeer ayaad mahadsantihiin soo dhawaada ayaa idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
Go.